asin kun Abu Bidaar ah. Abu Bidaar. Abu Bidaar waana wereeriye. Abu Bidaar oo kun ah yaa la sii. Abu Bidaar idiima hena iimaanka allaha idinku sugee waxaa ka horeeya shuruudu salaad. shuruudu salaah oo ay ka mid yihiin macrifatu waqtiha wa istiqbaali alqibla wa sidru alcawra wa tahaaratu alxadatayn wa tahaaratu alnajaasa fi althawbi walbadani walmakaan. makaan daahir ah waa mawduuca ay ku saabsan tahay arrintayade oo mid ka mid ah haddii laga waayo aan laga aqbalayn oo marduuda ay tahay salaadaada laba imow arkaanteeda sunanteeda iyo hay-aadkeedaba. haddaba haddii salaada lagu gudbayo taa ay tahay bal adiga run isku sheego macquul ma tahay ruux ku camalfalaya qowlkii alla subxaanahu wa tacaalaa ee uu odhanayay xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwustaa waquumuu lilaahi qaanitiin bal saliib u kaadiya inuu ku hor rukuuco wax u eg amaba waswaas ku keeni kara. maye dadku waa ay degdegsan yihiinoo waxaasba ma fiirino haye salaada horay u galnaayo. kan noogu khashuuca badan waa kaayaga qiraa'ada imaamka madaxa la ruuxa hadduu rabana taleefanka ansara. haye waxaase kaa ka sii khashuuc badan kiihee aad soo dheragsan oo darooga ka soo dhergay safka soo gala. cajiib. sababtoo ah isaga markuuba soo gelayay buuba khashuuc ku soo galayba. lacnatullaahi calaa man sakata waqanaca haadih waqadafa imaamu ahlu sunna waljamaaca saaxibu alxanaabila. wallaahi yaan ku dhaartay dad ay halkaa wax u taagan yihiin inaad isheeda leedihiin. ishiinu waa dad daroogaysan oo salaada iskaga roogi ayagoo indha cadcadaynaya iyo dad taleefana asari sidaasaa u badan tihiin. waxaana hubaal ah inaynaan u aabbayeelaynin sababtuna wixiinaba shawahaad ah balse mucjisati alqur'aaniya yaa waxay tahayba in 1400 oo sano ka hor in la inoo sii sheegay kuwiina. alla subxaanahu wa tacaalaa wuxuu yidhi fakhalafa min bacdihim khalfun adaacuu salaata waattabacuu shahawaata fasawfa yalqawna gaya. waxaa gadaashood imaan kuwa dambe oo daadufin dibu socod ah oo salaada la yici. waa su-aale salaada ma la yacdeen mise waa xifdiseen? jawaabta agtaaday taallaa nafsadaadana ha hafrin hana khiyaameen beenna ha u sheegin. haddaba inta salaada la yacdaahiisow uma liidataan haddiiba makaanka aad ku tukanaysaan uu saliibyo dushooda la xarxardhay ay ku jiraan. maye aan si kale u dhigo hadalka oo waxaad tihiin beenu hawaasyo jecel in been loo qurxiyo oo ay runtu gubto oo aan haddaan idin iraahdo
waxa meesha ku jira waa wax shubho keeni kara oo isku ekaansho ah ee maad ka saartaan soo hadalkaasi oo kay maaha waayaaba maxaa diidaya in dhisaanka la bedelo maadaama ay isku ekaansho kiniisadeed ee uu meesha ka muuqdo haddii aada muslimiin muwaxidiin ah tihiin oo weliba ay ku filan tahay inta aada hal jimco aruurinaysaan ka badan tahayna sida la hubo makaan daahir ah waa maqsadka ujeeddada ila alxabiib yaa cubaada asaliib sida aynu soo sheegnay shuruudaha salaada ayayna ka mid tahay oo haddii la waayo ay salaadaasi marduudo ay tahay oo lama aqbalayo waxaase ii muuqda inaynaan fahamsanayn makaan daahir ah waxa loola jeedo waxaa loola jeedaa meel aan wax najaaso lahayn najaasadaas oo ay ka mid yihiin kaadii saxaro iyo shirkiba oo macaabidulmushrikiin waa meelaha aan wax salaad ah lagaga aqbalaynin waxaase jirta in ay daruuro ku bannaan tahay markay baahi kuu geyso oo aada weydo meel kale oo aada ku tukato oo mar keli ah salaad labaad ulama laaban kartid weliba sharuud baa ku xiran oo waa inaad raamuusta oo uu ka mid yahay saliibka ama sawirada ama sanamyada hadday dhinaca qiblada kaa xigaan aadan ku tukan karin oo salaadaasi waxaad ka dheeftaa un ay tahay in lagugu soo celsho iyadoo cara alle wadata balse waxaad u eg tihiinba kuwa salaadaha ay tukadaan caro alla ka siyaasada maxaa yeelay xaalkiinu sidaan ma ahaan lahayn oo walaahowgan iyo welwelkan iyo sixiroolayaashan iska kiin yeeshay salaadihiinaa idinka difaaci lahayd shubhada ay keeni karaan zanaadiqada culummada idiin noqotay oo qiil idinkaga raadin karaan oo si dabagedis ah oo been abuur ah idinkugu fasiri karaan waa wathiiqatul cumariya balse taasi markeedaan ka hadli doonaaye waxaa cumaru binu khitaab ka sugnaatay inuu yidhi radiallahu canhuya laa tadkhuluu macaabida almushrikiin fa inahaa tanzilu sakhda war ha iskugu dhowaanina meelaha ay ku cibaadaystaan mushrikiinta oo waxaa kusoo degta carada alle taasaa cumar binu khitaab ka sugnaatay waana wax la hubo inay ka sugnaatay oo haddii nin war lagaaga sheego oo aad taqaanid siiradiisa ama daatadiisa waxaa fahmaysaa warkii lagaaga sheego inuu yidhi iyo in kale ninkii uu waxyigu waafaqi jirana warkiisa waayahay laa tadkhuluu macaabida almushrikiin fa inahaa tanzilu sakhda maxaa yeelay nin furqan waswaas iyo jahli kaga sugan maanu ahayn wuxuuna ka mid yahay kuwa uu rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi uu yidhi caduu calaykum binnawaajid sunnatii wa sunnatu lkhulafaa alraashidiina almahdiyiin waxaanse bartamihii 2015kii munaaqasho dheer oo sano qaadatay kadib kasoo saaray bayaan aan gacanta ka geliyey mid ka mid ah mudalisiinta mudarisna ka ah kiniisadda
bayaankaasoo ahaa mid shakhsi ah anigoo ku matalaya muslimka faya qaba ee ka badbaaday sixirka sixiroolayaasha iyo kuhanada ku adeegataba, kaasoo aan soo bandhigi doono goortii loo baahdo gunaanadkii. haddii rasuulkoo taagan la dhisayay masjid dhib iyo gaalnimo u taagan oo u ekan rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh, bal ka waran meeshii musalle ama mawlac lagu tukado ahaan jirtay oo loo ekaysiiyey kiniisad, xukunkeedu muxuu noqon? masjid diraar buu ku xugun yahay, balse waa kasii liitaa oo masjidu diraar kii rasuulka loo ekaysiiyey, kanse waxaa loo ekaysiiyey kiniisad. waxaase ugu baaqi lahaa man lahu udunun waaciya wa qalbun khaashica inay iskaga fogaadaan kiniisadda karmeel oo ruuxii muslim ah oo ku tukaday tan iyo 2014kii uu soo cesho salaadiisaasi ilaan maqbuulo maahine oo meeshu waa kiniisad kay shawahaad ka tahayna oo munaafiq mudallis ahna ilaa haawiya wa calayhi lacnatullah man sakata وقنع هذا التلبيس الإبليسي وغدف وافترى إمام أهل السنة والجماعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل كيد الكاهنين في نحورهم واجعل مكر الماكرين في نحورهم. اللهم اهلك دجالين وافتراءاتهم. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد.